magacayga saddexan waa Cabdi Jabbaar Maxamed Salaad deegaanka Dhadhaab ka soo jeedo Dhadhaabna ku soo waxbartay waqti xaadirkan Dhadhaab ka shaqeeyo kooxdan waxaa la dhahaa Badbaado waxaa la aasaasay 5 sano ka hor ilaa hadda way socotaa olojeedada kooxda loo aasaasay magaceeda ayaa sheegayo magaceeda waxaa la dhahaa Badbaado badbaadin laga badbaadinayo dhalinyarta yar oo hadda soo kacayso muqaddaraadka iyo waxyaalahan kale oo ma aragtay haday noqoto tuugnimada ama ma aragtay burcadnimo iyo waxyaalahaas in looga hortago oo laga ilaaliyo darteed ayaa loo aasaasay marka dhalinyartii oo lagu mashquuliyo dhanka sportigana waa ogtahay waa kaalin oo walaalnimo ama saaxiibnimo dadka iskugu keento badana dad badan oo ma aragtay kala aqlabiyad ayaa isku imaanayo oo meeshaas isku baranayo farxadna way ka dhalanaysaa muddadii ma aragtay dhalinyarta aasiin lahayd in oo ma aragtay shaqo la'aanta jirto ogeed in intay tagaan meel kale intay fadhiistaan muqaddaraad iyo waxyaalahaas ay ku mashquulaan ayaa sportiga iyo banooniga lagu mashquulinaya marka saad darteedaan waa is-aasnay caqabado badan ayaa jiro sidoo ah degmada hadda anaga aan deganahay mise koonkan hadda aan joogno oo fahanka sportiga uu ku yar yahay meelaha kale marka tagto dadka kaalinta weyn ama kaalinta koowaad ay sportiga kaga jiraa balse hadda anaga meelan joogno sportiga aad buu ugu yar yahay sida darteed waa sida u maqleyso falal kale oo ma aragtay cabsi ah ama falal argagixiso in oo dhalinyartii ay u badan yihiin balse hadda aan ma aragtay kooxdan Badbaado ah aan bilownay dhalinyartii dhammaan waxa arkaa in oo ma aragtay isku mashquulinayaan sportigoodana meel weyn ka bal faa'iidada haddana qaarkood si jirto waxa jira dhalinyar oo kooxda ka tirsan oo iskuulka dugsiga sare galaaska koowaad ilaa kii afraad bilaash loogu akhrinayay sababta ah talentka iyo ma aragtay sportiga uu leeyahay asagoo matalayo iskuulka uu ka dhiganayo markaas rag kuwaas kamid ah ayaa nagu jiraan oo ilaa ay saas oo kale sportigan talentka ay ka leeyihiin ilaa iskuulka ay ku soo dhameeyeen waxba aan laga qaadanin marka faa'iidooyinkaas ayaan rabnaa inaan u bandhigno walaalaheen iyo dadka kale saa darteed waa faa'iidooyinka aan kala kulano meeshan waa faa'iidooyinka caqabadaha ay soo jamacnimada caqabadahan waxa arkaysaa dhalinyar badan oo ma aragtay waqtigoodii ku dhameeyeen ma aragtay fikrado kale oo qaldan ma aragtay kuwa qaylaayana arkaysaa kuwa oo dugsiga iyo iskuulka ay dhiganayeen uga baxayo waxyaalo kala arkaysaa balse lama sheegin maanta nin sporti uu ka reebay iskuul ama dugsi marka caqabada way badan yihiin waxaa jiro waxyaalaha hadda luqadda qalaad aan ku dhahno mataqaana adultery ama waxyaalahaas oo dhalinyarta iyo waxaas ay ku dhaqaaqayaan ama dumar ama rag ba ha ahaato inta hadda anaga maana bilaawin koox oo dumarka ah balse koox oo dhalinyarta ayaan bilawnay marka waxay ila tahay ma aragtay caqabada u weyn oo aan la kulmeyno oo kale oo meeshan aan ku haysanana waxa waay dhaqaale darro la'aan dadkeena oo fahansaneen sportiga anaga ayaa hadda heerkan is soo gaarsiinay dhalinyarta anaga isku keenay ilaa 5 sano meeshan aan joogno marka dadaalkaas aan wadnay ilaa haddana dhalinyarta waa ku aan ku horumarnay oo intaas oo meel aan tagnay Libooy aan tagnay Gaaris aan tagnay safartii noogu dheereed waxa waay Thika ilaa Thika ciyaar u tagnay oo aan soo noqonay waa imaanay marka saas waay magacay maxaa la Liibaan Diiriye Xasan waxaan ahay kabtaanka Badbaado teamkan maxaa la Badbaado waa team ka dhisan Dhadhaab waa team horumarkooda dhalinyarta ka taliyo waa team mar walbo dhalinyarta u taagan oo mar walbo farxad geliyo dhibaato weyn oo haysato maxaa waaye ma haysano qof oo maanta garabna siiyo haddii maanta garab afar badan aan heli lahayn dhanka haato kubadaha dhanka kawa haato dhanka maalgelinta finaanaha haato haddii maanta aan heli lahayn nin garabna siiyo misana garabna siin lahaa mise la ogaan lahaa kubadda dhalinyarta wuxuu hayso faa'iido ay leedahay horay aan u socon lahayn meelo fara badan oo maanta aan rajaynayna waan heli lahayn waxaan jecelnahay inaan anaga horumar gaarno waxaan jecelnahay inaan maanta aan dad fara badan aan horumar gaarsiino waxaan jecelnahay dhalinyarta inta soo maanta nolol joogto iyo inta naga maqanbo inaan isku imaano oo saaxiib noqono mid kalena ku badan maxay keentaa inay dadka dhan walaalo ay noqdaan ay jeclayso saaxiib meel walba joogana ay isku maatiin maanta si wada jirna ay u ciyaartiin waxaan jecelnahay waqti walbo inaan maxaan jecelnahay waqti walbo aan horumar gaarno horumarkayna maxaa kamid ah waa inay anaga horta garab la siiyo garab markii la siiyo ayaa horumar gaari karnaa
dhibaatada u weyn maxaa waaye anaga ma shaqeyno iskuulaan bugnay qaarkood iskuulay dhigtaan qaarkood jaamacaday u socdaan nin walbo hami ayuu leeyahay hamigana aan leenahay maxaa waaye inaan maanta anaga faa'iido badan aan keenno maantana aan ku soo kordhino inaan maanta aan waqti aan siino kubaddaas maxaa waaye waxyaalo fara badan oo naga alisaa jirtaa sida muqaadiraadda oo kale dhibaato fara badan oo anaga noo imaan lahaa ay kubaddaas ay naga soo wajahdaa ay naga qabataa marka waxaan jeclaan lahayn inaan maanta aad nagu taageertiin kubadda inay maanta oo aan dhaqaale nagu siisiin inaan maanta oo horumar aan ka gaarno oo faa'iido badan aan keenno caqabadaha way badan yihiin waayo ma haysano cid oo ma aragtay garabkeena taagan oo nagu taageerto kaalintan isboortiga haba ahaato ma aragtay dhiirigelin ha ahaato ama maalgelinba ha ahaato labadaba wax aan haysano ma lahan haddii aan heli lahayn waxaan u maleynayaa inaan horumar hadda kan inta aan sheegno mooyo horumar ka weyn inaan heli lahayn magacaygu waxaa waaye Weli Axmed Cabdi kooxda waxaan ku soo biiray almost anigoo young ah oo aad u yar waxyaalo fara badan mataqaana kooxdan ay gaarsiisaa jiro meelo aan weligii tegin kooxdan ay geysay like waxay geysay kale waxay geysay Mandera oo kale ay geysay waxay kaloo ay geysay mataqaana Garis waxaan tagnay Liboyo walaahi waqtiyo safar badan oo aan baxnay waxaan la kulanay guulo aad u soo hayna oo aad u farxada kooxda marka waxa waaye waxay u baahan tahay support caawinaad aan haysano ma lahan dhalinyaro waxa jiro talent ah mar walba mataqaana waxaan jecelnahay talentigan inaan horumarino talentiga waxaan ku horumarin karnaa inaan helno dhaqaalo in qofka bini'aadanka ma artay aad niyadiisa dhistid waayo hope waxaan u leenahay mataqaana anaga waa bununtaas talentigeena dhan waa bununtaas meelo fara badan oo aan tagnayna dee guulo aan ka soo heysinay waan jecelnahay tiimkeena badbaado laakiin wax support aan helno ma lahan hatta iskuulo xitaa waxaa jirto iskuulo fees xitaa waan lagu soo bixiyay talentnimadeena iyo bununteena aan ku horumarinay coachkaas mataqaana muhiimadda koowaad garab istaagay oo isoo dhisay inaan mataqaana talent leeyahay dadka i tusay hadduu asaga ahayn dee maba heli lahaynba talentiga naftiisa iskuul yaa bixi aan ku dhimay maanta caqabado fara badan oo aan kula kulnay way jiraan hata anagoo Gaars tagnay waxaan helnay mataqaana inaan academic kale aan tagno waxa academiga noo diiday ugu biir weey lack of sharci waan goostay sharcigayga ku sugan haysta ku sugtay ilaa hadda mataqaana meesha ma soo bixin oo meesha maraysa xitaa waxba khaldan iyo waxba khaldan baa leeyahay I don't know wax khaldan xitaa marka waxa u baahanahay mataqaana in la caawiyo dhinac walbaba caqabad bay ku tahay talentigayga waayo waa ma helaba talentigayga waan soo bixiyay waxaa la dhahay mataqaana waxaan ka rabnaa sharcina ma haysti taas keentay mataqaana inaan aan meelahan aan dhadhaabtan aan dhaafin area dhadhaab marka waxa soo diri lahaa mataqaana wax fan ma haysano haddii meelo kale aadi lahayn waxa ka sharci kuma aadi karno waayo hadda dhalasho meel walba kuma mari karno waa la isqabanaya marka waxaan u baahanahay in loo soo sharcigaas aan helno academy fiican sida mataqaana oo qayb qaadano magacaygu waa Faysal Cabdi Cumar oo degmadan Dhadhaab degan inaan ka hadlo uma baahno kooxda faahfaahin ileen waxa ka hadla coachkayga si weyn uga hadle kooxda wax walba uga hadle walaalihiina sidoo kale kooxda faahfaahinteeda wax walba ka hadleen ani muhiimadda aan ka hadli rabo hadda maxaa waayo caqabadooyinka aan kala kulannay wax walbaba caqabad uu leeyahay horta marka hore garab ma haysano sida aan nahay badbaado waxa garab taagan waxa waaye coachkayga Abdullah Mzito oo asagana kaalin weyn ka geesta kooxda oo coachka garab taagan waqti walba Karo Maxamed Karo asagana kooxda garab weyn ka geestay muddo badan dadka oo garabkana siiyay maanta dadkaas ayaa caqabada ku aan la kulanna maxaa waayo marar badan waxa dhacda anaga waxa ku dheelnaa qaxootiyaha iyo meelo qaar ayaan adnaan ku soo dheelnaa marar badan waxa sameynaa anaga ayaa contribution iska qaadna oo wax iska arurnaa waxa iska arurnaa ku tagnaa safarta aan ku aadna cid kale oo garab aan ka helno masana garab aan ka soo karno masana garab aan ka caawin karno ma jirto oo aasan ka ahayn coachkayga iyo ragaas Abdulwahab iyo Karo aan ka ahayn cid kale oo garab aan ka soo karno masana ka caawin karno ma jirto waxaan garabka ka caawanayna maanta aan garab ka rabno waxa kamid ah siyaasiyiinta
siyaasiyiinta kuwa oo businesska dadkaas oo dadka oo magaalada iska laha ayaan garab ka rabnaa sababtoo ah badbaada waxa loola baxay misana magacan loo asaasay waxa waaye dhalinyarta inuu badbaadiyo uu ka badbaadiyo muqaadaraadka uu ka badbaadiyo marba haddii muqaadaraad bilowdo dil iyo dhac iyo tuuganimo meesha way soo gali ilaan ma haysatid maanta muqaadaraadka iyo wixii bilowday waxaad ku kaafiso ma haysid maanta so danta maxay kugu qasbay inaad dil sumayso dhaca sumayso magaca badbaadana waxa loo bixiyay inuu dhalinyarta badbaadiyo dhalinyarta badi oo maxaa jiraan school bogeen at the same time oo wax shaqo aan haynin still wali joogaan marka cidiidi ma lahan qofkii hadii marba uu xaafada joogo wax shaqo uu haynin oo hal abuur uu haynin cidi uu joogay inuu balwad bilaawi balwadadu bilaabana waalidka xaafadu isga faahan so dantii maxay ku qasbay inuu ninkii dhac sumeeyo dil sumeeyo meelo badan uu maro so badbaada waxa loo bixiyay oo loo asaasay 5 sano ka hor muddo 5 sano ka hor wax loo asaasay oo loo bixiyay magacaas inuu dhalinyarta badbaadiyo oo dhibaatooyinka soo wajahayaan iyo wax walba ka badbaadiyo caqabadana kaloon haysta anaga maxaa waayo kubad la'aan wax kubadna siiya ma lahan lacagta inaan ku gadnaa anaga contribution sameeyna cid kale oo naga caawisa ma jirtaan midda kale kaba la'aan kabiye kubadda lagu dheelahay ka go'aan qofka maanta garab taagan waa coachkaaga almost anaga waxaan that 5 players uma wada gadi kara kabo dhaqaalahaas dhan ma bixin karo sidoo kale Muzito asaga ma bixin karo Cabdiwaab Muzito Karo dadkaas ana garab taagan dadka wax u qaban karaan waa dad yar siyaasiyiinta iyo dadka oo businesska garab weyn ayaan ka codsanaynaa so muhiimadda hadda loo asaasana kooxda kulli waan sheegay caqabadooyinka ku dina waan sheegay midda kale oo dhibkana haasto badi ma ku dheelna dhadhaab nama arkaan dadka degmada dhadhaab waxa yeelay badi waxaan la soo dheelnaa badi waxaan la soo dheelnaa qaxootiyaha xareeyanka sida Liwooyo kale aan ku soo dheelnay sidoo kale waxa ku soo dheelnay Gaarisa sidoo kale waxa ku soo dheelnay Ifo waxyaalo badan meelo badan aan ku soo dheelnay so maanta waxaan rabnaa inaan dadka garab aan ka helno siyaasiyiinta garab aan ka helno dad kuwa businesska garab aan ka helno cid walbo maantana oo taagan oo dhadhaab u taagan MB-ga MCA-ga dadkaas ku garab aan ka rabnaa ayagana inay nagu saacidiyaan because waa mas'uuliyad ka saaran ayagoo waxaan aan difaacayno aan hor taagannahay oo caqabadooyinka iyo waxan dhan aan ka difaacayno oo soo wajahi doonaan sida balwada iyo dilka iyo dhaca waxan aan ka hor taagan aan ka difaacayno oo ka badbaadinayno ayagoo ilmahooda way yihiin because degmada dhadhaab ay ka dhasheen way u dhasheen ayaga mas'uul ah ayaga hogaamiyaan ayaga xitaa mas'uuliyadda ka saaran waalidka ilmihiisa oo mas'uuliyadda ka saaran ayaga degmadan dhadhaab xilkeeda ayaga hayaan mas'uuliyadda ka saaran mas'uuliyaddaas ka saaran anaga qaadna maanta oo isku daynid inaan difaacno ilmihii dhalinyartii so anaga isku dayna inaan safeguard gareyno dhalinyartii coachkay khayr Allah siiyo marar badan kaalimo badan uu ka geystay iyo dadka saaxiibiyay oo garab taagan asagana aad iyo aad u mahadsan yihiin so waxaan jeclaan lahayn maxaa waayo caqabadooyinka aan sheegnay maadaama hadda maanta aan sheegnay in lagu taageero oo kubadda cagta lagu taageero anagoo wax dhibaato aan wadin oo jecel in dhalinyarta badbaadino in lagu taageero oo wax qabad noo sameeyo